aniga maanta shaaficaan waxay erinayaan nin qaran dumisa abaha Allah naxariista qaranka buu dhintay dhaawacyada qaranka ka soo gaaray xilliga dagaalkii buu inaadeer u dhintay aniga waxay wiilan gaadhan ku jirsay naxta kowde wallahi caafimaadka way luqluqyadan maraa maxaad arinta u sheeg wadeen gaadhin lagu jirsay lagu hanjabay wallahi sax baan cabsanaydee daawadayaal waxa barbarkayga fadhiya صحفي شافعي شاعية وكمدا صحفيين تكاهل قال مقالة هرقيسة شافعي قورها بينما أيان هلكن يكون كلاني يسوقوا وليبا السفرة أو حرحران قرشيه سنو يهي بري صلاة هوري أما صلاة الصباح إنو كبحو سومالي لان أو تغو ميل آن سومالي لان أهين بالشافعي سودو ولال محمد وكسودو وينيا وكاقا محل علمي وقتها قارقا ساد أركيسو وانا ببحيا dalka waan ka baxayaa niyo waxaan ahay nuuriya oo magaalada Hargeysa ku nool iyadoo ku dhashay ku barbaaray ka shaqo galay run ahaantii maxamedow marnaba kuma fikirin magaalada Hargeysa ka baxa oo meeshaad ku dhalatay dhulkaagii hooyo kaanba baxisma lahayn haddana way ka fiirsan weydeen niyo waxaan jawaado badan oo iiga yimi magaalada Saadinaha sirdoonka lexsan ayaa kalifay inaan maanta Hargeysa ka baxo sirdoonkaasi ويسو هنجبين قوبيها كشاهين تري قوبيها كشقين تري انتي بويتيجن ايغو انيغي رادينيا سيدو كلا غوريغي بيتيجن ايغو انيغي بادي قوبيا قرشونا وحو يحيى ان انيغي خيران رنانتي وارن laga xumaado maxaad samaysay shafaa lagu xiraya niyo walaal waxa ma sameyn waxaan kamid ahaa wariyaasha magaalada Hargeysa ku nool ka shaqeeya waxa sii daayay wararka caadiga waliba inta badan waxa sii daaya wararka adigu arrimaha bulshada wararkaasi baadee magaranaysa laga yaabaa in lagu qoonsaday arrimihii bulshada runtii waxay u baahan yihiin codkooda kor u qaada tabashadooda sheega xukuumaddan saa ka muuqataa waxay ka soo horjeedaa maxaa dadka daboolka looga qaadaya maxaa codkooda meel dheer loo gaarsiinaya run ahaantii markaa maxamedow in maanta aniga la xidho oo ay qorsheeyaan inay aniga xiraan kadibna daluun igu ridaan waxa weeyaan maxaa dadka codkooda u baahis xagaad ka keentay adigu xogtan ah in lagu xirayo daluunta lagu ridayo walaalow taas waxa iga qarsoon maaha duuriyaal badan oo aan asxaabnahay oo aan jeclaynahay ka magacyadooda ka sheego ayaga la weydiiyey ninka Shaafici Shaaciye leeyahay baan doonaynaa gurigooda noo tilmaama heer waxay gaan xataa ay qabiilkayga doonaan aniga qabiilkayga raadiyaan way Shaafici in wadigan le wali raadinaya inta lagu raadinayo aduguna aad dhumaalis ku jirtay walaalo muddo bil bay haydimka waa bil an bal raadinay way mar adigu xataa leeso hanjibay oo noob maxay ka leeyahay breakfast number laga soo garaacay jirta heer xataa lagu gaareen ku jirsanayna amba warka ka saar bay soo martay oo cabsi darteed aan warkii ka saaray muddo adigu dhowr iyo 10 cisha markii nimankii aan u ninkii macnaha ee aan magaranaysa waxay doonayaan sii deynayay ee warkii dadka dareenkii bulshada aan joojiyay doonistooda ku shaqeey wan u adkeysan way hadana waxaan bilaabay waa dadkan kule gaadhan ku jirsananayo kule sidaa sameeyo doonisteeda ku shaqee waayo wasirdoonka lexsan weeyaan wasirdoonka lexsan marka ma aqoonsanaysaa mise breakfast number ma laga soo garaacaya niw hadii jeer kaarka markii dadku soo wacan breakfast number laga soo qoro laga soo qaraaco inta badan lama arko lambarka ku soo wacay laakiin breakfast number buu halkii lambar ku qornaa isku qoraya way anna waan ka qabtaa hadalkeedu markay dhameystaan way ka jiraan way hanjabaan warka ka saar bay ugu hadaan imika waxaan gaaray aan warka ka saar waayo ugu hayade markii aan ayagii u hoggaansan waayay waa kuwan keenay in gurigeyga tagaan oo dumarkii iyo hablahaygii joogay ay qashqashaadaan waa kuwan keenay xafiisadan ka shaqeynayay raadiyaan waa kuwan anigii toos dadkii asxaabteedii wariyaashii u tagay oranayay hebel waa kuma shafaa way maadaama safar tahay birina aad baxayso halka ku qorshaysan tagto walaalow niyo horta wallahi san hore kugu sheegay Soomaaliland waa jecelahay ismaan lahayn habeenna kuma fikirin magaalada Hargeysa ka bax way laakiin iyo dadka ka fiirsan weydo naftaadi meel aad ku aaminto weydo shaqaysan kar weydo taniyo waxaan go'aansaday meel aan Hargeysa ahayn Soomaaliland ahayn laakiin nafteedu ku aaminayo inaan taganayo halkii igu baxayso aan isla naftaadu ku aaminaysaa oo aan maanta kooreen maxamedow halka weey بين هذا الصعود. شافعوا مادام الصحفيين ترى بدنا مقالات هركساي كشقيان ورر أي تبيان ما حدو ملاين صادق وحاسو صحفية إن لقاقو صعودي مسجل ورر أدبايسي وأتوسنت هاي إن أدمي كوجليسو. ولا لو مي
waay ma aaminsani marnaba ma aaminsani shaaficiyow waxaa sii daysay waraad dembi ku gelayso waay dee inaad wad garanaysa warkaad riski ku gelayso ee aad leedahay shaaficow waxaan wad ku khaldan tahay jooji qofku garanayo wari walayna barayde maanta isma lihi maxamedow war aan isleey waa lagugu xidhayaa marnaba dee manduubin waxaa laygu hayaa waa arrimii bulshada arrimaha siyaasadda inta badan kuma sii yar magaalada dheereeyo waaye maadaama dalkii ka tegayso fariinta aad u dirayso suxufiyiinta tirada badan ee kaa dambeeya xukuumaddii iyo bulshadiiba maxay tahay niyow wada suxufiyiin badan hargeysa way joogaan suxufiyiinta waa loo sahanjabaa qaar waa la dilaa qaar waa la xidhaa qaarna doonistooday ku shaqeeyaanoo xaqiiqooyin ku jiray bay dadka ka qariyaan fariin baan markaa kan caawa marinaya fariinta u marinaya saaxiiba waxay tahay niyow intay balde systemka hagaagiyo xaaladdu isbedelayso lafiina u tudha markaan idin leeyahay idilma lihi xaqiiqooyinkii qariya xaqiiqooyinkana sheega bal wixii aad ku badbaadaysaanna inaad deefala waa tan waad arkaysaano qofkii hadla dareenkiisa cabira qofkii wax xaqiiqaa sidaa qarandumis baa loola jeedaa aniga maanta shaaficaan waxay ii eryanayaan nin qarandumisa aabbaha allah u naxariista qarankan buu dhintay dhaawacyadii qarankan ka soo gaadhay xilligii dagaalkii buu inaaderow u dhintay may fahantay dalkan maanta liileeyahay shaaficu qarankii baad duminaysaa dadkaygii baa u maqan marka qaranku ma beed baa maxaa jibinaya qaranka maxaa duminaya ma war xaqiiqoon sii daayey ayaa qarankii dhammaa duminaya arrintaas wax caqliga geli kara maaha shaafici maadaamaad baxayso qorshaagu muxuu yahay ilaa goormaad isleeda dalka ka maqnow niyow horta saan hore kugu sheegay wax dalkayga saaraya waa cabsi sooma maalintaas arko inuu systemku isbedelay maalintan arko in garanaysa dadkii dee wixii laygu haystay amba dadkii haystaba ay meeshii baneeyeen waxaasay soo noqo haddiiba ay dhici weydo dee ilaahay baa qadarinaya intaa in ka badan wallahi ismaan lahayn ka maqno laakiin ilaahay baa qadaray dee wax walba inaad naftaada ka fiican marka nafteeda badbaado la doonanayaa reer somalilandna mid baan leeyahay halka talaan shacabka reer somaliland siinaya maanta waxa weeye waxaynu ku jirnaa xabsi madaxa sare ka furan xabsi dedan waxaan leeyahay dusha sare ka furan hawadun baa leedha ka qaadanaa waxaa ma odhan kartid runta ma sheegi kartid qof cabanaya cabashidiisa ma gudbin kartid mar alla markaad qofka cabashidiisa gudbiso baad 9 telefoon ku soo geliyaa oo lagu leeyahay warkaa ka saar haddaad ku madax adeegto lagu hanjabayaa anigu waxay wilaan gaadhaan ku jirseen xataa kowde wallahi caafimaadka way luqluqyadan maraa maxaad arrinta u sheegi weydeen gaadhi in lagu jirsay lagu hanjabay wallahi sax baan cabsanayay waxaan u sheegi waayey haddana maanta idhaahdo waa la dilayaa haddana xataa imka warbaahinta ka soo muuqdo waqti xaadirkaan kula hadlay haddana warbaahinta ka soo muuqdo muuqaalkaas subaxaan hargeysa jooga waxaan ogeyday inaad arrinaan badbaadin ma fahantay markaa sababtan u qarinayo in hanjabaadaha igu socda aan sheego waxaa keenaya inaan naftayda u baqo markaa insha allah khayr bay maxamed u noqonaysaa somaliland dee guul bayn leenahay somalilandna dee qof hadal yidhi amba war xaqiiqo loo sheegay somaliland kuma dumayso maa dadka qaar baa aaminsan somaliland dee inay beed tahayoo bashkuc odhanaysa marka magaranaysa la yar cadaadiyo somaliland anagu ma cadaadino dadka ugu jecel baanu nahay dadka codkeeda meel dheer gaarsiiye baanu nahay dadka somaliland waxay tahay dunida baray baanu nahay haddaanu ka hadlayna saxaafadda maanta somaliland inay soomaaliya ka godaya ogeysiiyey ma kutubtaa lagu xarray soo saxaafaddu dadka may gaarsiin dunida may gaarsiin suuqi wahan way ogsoonnay maxamed cabdi sheekh maxamed erig oo dee siduu u tabaniye la ogaa maanta booraan buu ku jiraa bal waayahay maxaad qarankii kaga tabcaysaa haddii dad gaari kaa sheeganayaan haddaad far qaado lagu odhan qarankiiba duminaysaa yaa qaranka dhisaya ma kuwa maanta dadka kala tuuraya wariyaasha dilaya xidhaya baa qarankii maanta dhisaya anigu isma lihi qarankan hadduu saa ku sii jiro wallahi waa jiraya isma lihi haysalka aad ba saafi maasantay khayr badan baa wala ku rajeynaa daawadayaal xilligan oo goor dambe u habeenimo ayaanu shaafici magaalada hargeysa isku aragnay isaga iyo agabkiisuba ay xidhxidhan yihiin waxaa xusid mudan in halkan aan shaafici waraysiga kaga qaadaya aanay ahayn meel ku habboon agabkii ku habboonaa laftiisana aanan kaga duubaynin taasina ay saamaxday cabsida uu shaafici qabo oo xataa uu aamini waayey in banaanka uu waraysi ugu siiyo shaafici waad mahadsan tahay khayr badan baa saaxiibku rajeynaya allahu sharfalal guul badanna waa idiin soo rajeynayaa halka mid baan raacsan lahaa halka kelmadaan raacinaya waxa weeye waa dhibaatada saxufiyiinta haysata niyow maanta soo gaariga ma saarin markaan gaariga saaranay mooyaane inta kale oo dhan de waxaan isku loo hayay gidaarada
waxaan marayaa meelaan socodkayga ku habboonayn waay waxaan marayaa meelaha adigu wallaahi cadiim aad naftaada u baqayso anoo ka baqaya niyo bilaa gaari lagu jirsiyaa bilaa lagu toogtaa wax allo waxaas oo dhani waa cabsi keligay ma haysata dhammaantoodna haysata keligay ma cabursanay maanta ninka suxufiga hadduu caburo oo xaqiiqda sheeg waayo waxay ka dhigan tahay dalka oo dhan ba cabursan maanta haddii anigu aan xorriyad ku noolahay waxaan sheegaya aanay ciidigada difinayn wuxuu dalkaasi ka dhigan yahay inay dalkaasi xor haysto Soomaaliya ma xoroobin inta dadkaasi dalka ka talinayaan dadkii la afduubayo dadkii la jirdirayo dil looga hanjabayo wallahi baan xoroobin because Soomaaliland dadkii u dagaalamay oo aabahay kamid ahaa waxay ka dagaalamayeen wax maanta taagan ونصيب درو إن المانتا كتغو ماشي أبيه حرية والله ما كحمها شعب كرير سمالنا نقول بنرتشين إن شاء الله